سببت دواي سلاعني هاي ساني دامي ساني دامي ساني دامي راتشي maxaa kugu dhacay aabba haddiideedu kuma farxin ima aadan sheegin waadna i bixisay maxaad iigu sheegi weysay maxaa dhacay gabadheydii aniga hore waan kugu sheegay qoraxda markay soo baxayso waxaan jeclaa wejigaaga inaan arko maantana wixii farxaddaada ah inaan ka fikiro xaq ayaan u leeyahay gabadheydii maxaa yeelay aabbo walba wuxuu jeclayaa gabadhiisa inay ka soo jeesato reer fiican nolol fiicanna ay gasho waana ogahay aniga wiilkan inuu farxad ku siinayo beelo wiilkayga beelo ya waxaad rabtaa wiilka aan maanta kaliya aragnay gabadheena cumrigeeda inta ka dhiman inuu la noolaado soo maaha go-aankan sidan u weyn inaad qaadato keligaa yaa awood kuu siiya adiga ii sheeg bal hooy maxaad ku hadlaysaa gabadhan aabbaheed ayaan ahay samaanteed maan xumaanteeda kama taliyo mideeda kale yaraanteeda ilaa hadda aniga ayaa wax u dooqaya waaba sidaas waxaad ku dhimisay gabadha ee wax kaaga dooqan laadahay Yeah. teeda kaleeto wiilkayga sooma ogid inaysan tan ahayn liiska iskoolka ood adiga u dooqaysay wiilkayga tan waa nolosheedii cusbayd ay weliba iyada keligeed ku noolaan lahayd teeda kale wiilkayga go-aankaas inaad gaartid adiga waa qalad noloshaana inay go-aan ka gaartay iyada ayaa xaqu leh waayo adiga lama tegaysid reerkeeda ayada ayaa reerkeeda dhaqanayso mana kuu suurtagelaysa mar walba adiga inaad la joogtid teeda kale wiilkayga subax walba haddaad rabto wejiga gabadhaada inaad aragtid ma suurtagelayso waxaa arkaya wejigeeda ayada ninkeeda go-aankaasna waa inay iyada gaartaa wiilkayga go-aankaana inay gaarta iyada ayaa xaqu leh laakiin adiga xaq uma lihid hooyo naagteeda adiga ayaa ii dooqay warkaaga haddii la raacso qalad maaha marka dooqaas aad adiga ii dooqday wiilkayga taasi tan laba ayay kala yihiin adiga iyada waad istaqaaneen wiilkayga waad wada sheekaysateen gabadheeda iyo wiilka haddaad isku dayn leed ay sheekaysan lahayn xariir dhexmari lahaa oo iyadana afkeeda haa kaa tidhaahda aniga kaama diidi lahayn guurkana waan kaa ogolaan lahaa laakiin hooyo firon armiis oo dhan markaan soo ogaad kabacdiyan aniga gabadheeda u ogolaaday labadoodan gacmooda aniga ayaa isa saaray arrinta gacmo isa saarid ma taagna ee arrinta waa mustaqbal iska daa gabadha kaa dooqata iyada waan ku baryayaa markaan u daa iyada wiilkayga waaya hooyo saad jeceshaan kuu sameynaa haddiiba ayada ay dooqanayso waxay rabto diyaar ayaan u ahay waxaana ballan kaa qaadaa mar dambe arrintaan inaan lagu soo qaadin ilaa ayada ay ka ogolaato noloshaada waa markii ugu horreysay oo go-aankeeda gacantaada la saaro go-aankaaga ugu horreeyay waa midkaad ku aaqirsan doonto waxaan kuu rajaynayaa inaadan go-aankaaga aadan ku degdegin maanta waa markii ugu horreysay oo nolosheeda go-aankeeda la gaaro ma aqaana si aan wax yeelo ma go-aanka aabbahay ayaan qaataa mise aniga sida aan rabo ayaan yeelaa tanina waa qisadeeda weliba nolosheedu qusayso tan ugu dhibka badan ma aqaan waxaan sameeyo adiga waxbaa qaban ya inta la ii taagnaa fiir adiga saaxiibada aabeed nin ayuu siiyey iyadana waxba ma samaynayso way iska aamusan tahay ma aqaan aniga mucjisadan meelay ka timid
guurkii ayaaba dheel noqdayba ninkan waa ninkay nolosha la wadaagi lahayd ayay hadalkaaga maxumo balse aniga mid ayaan ogaaday maanta maxaa waay ilin adiga makaa xanaaqdo ma doona ayaad u agtahay ka waran niil laga dhaxday okay fiir laakiin adiga midii sheeg ninkan ka warana aniga waxaan ku leeyahay lacala baraaji haddii arooskan ay diido aniga diyaar u ah guurkan aan ku leeyahay sangala gala adigana may asiga ka moodo ee gabdho badan haddii la dhashteen lacala no ha ana guursanayaan ku leeyahay naga tag okay ayuu haddaan soo ogaanaa okay wax yar ii kaada bye waan ku salaam magacaygu waa Bobby qoftaan oo Soomaaliya barasho wanaagsan anigana waxaan ahay okaade ana qiyaasay niil soma wow qofkan waa heer magaal ah waxaan u maleynayaa saaxiibteeda baraaji inay kuu sheegto soo ma saaxiibtada ibraji ha saaxiibteeda baraaji mawjad ana hadlay baraaji hada saaxiibtada aniga maxaa ahayna may maxaan ahay niga sheeg Priyanka adigu waxaad tahay saaxiibteeda tahay no ha isijkaal aan ku baray qoftan waa Priyanka saaxiibteedu oo hadda adiga ma dhihino aniga baraaji ayaan jeclahay waa saaxiibteeda saas miya fiir waxaan fahansanaa baraaji waa saaxiibteeda ma fahantay qoftani Priyanka waa saaxiibteeda ha nasiida hanugu dhagina war orodayda fiir anigu waan uga qiyaaminaytaa inta xafladan adiga tagtay laakiin waan ka aaray adiga inaan ka aarsado la jirto fiir saaxiibo baraaji aniga saaxiibteeda ma noqon karto way qoftaas wuxuu u baahan tahay dulqaad badan anigana maxayo adiga oo hayo umaleena okay hadda marka waa ka tagaya adiga okay Priyanka kale kan ma falan yahay neefu fiiri mar dambe ma laga yaabo kaligaaga inaan meel kaaga tago daqiiq iska dhaafee ilbiris xataa ma kaaga tagay aryaa baranji ma ma aqaana so bax igta kay qasine kale saaxiibu raadino anaga saan u raadinayna waa daan adaa joogjoog soo saaray war iga foqorkii xataan ku dhahay iga tag baraaji waa ku baryaa biyaha way yaryihiin ha isku tuurin ee meel biyo badan raadso aniil adigana neerus ayaa tahay soo ma sidee ku ogaatee adiga markaad aamusto waxaad ka hadashaa faraha sida hadda karbasaarka aad wadato faraha ugu duubaysa oo kale markaas waxaa caddaanayso inaad nervous aad tahay aniga waxaan ka fikiraa waan la socdaa qofka aad ka fikiraysa adiga waxaad ka fikiraysa waxaad rabtaa qof adiga aad kuu darajiyo aadna kuu ixtiraamo halka mar aa wacdo isla markii kuu imaanayo midda kale raashinka aad jeceshahay mar walba uu og yahay adiga cusbada in lagu yaraayo basbaaska casiirka inta sokor lagu daraayo qofkaasne wuxuu noqon karaa shaqaalaha guriga adeer raamoonka wada waa ogaay aniga adiga inaad ka fikiraysay adeer raamo war naga aamus firi waxaan ku weydiina aabba mala hadlaa si qofkan lagu guriyo maxaa yeelay raashin xaggeeda kama fikiraysid wax walba aad jeceshahay dooqaaga asaga kuu samaynaya wax walbo adiga basbaaska macmacaanka aye mala hadlaa adeer war naga aamus adiga waqti walba ciyaar leh ka hadlaysaa shaqo kale ma qabtid miya haya maxaa yeelay adiga xanaaqa sanka ayuu kaa saaraya marka lagu qasban yahay in xoogaa lagaa qosol siiyo ha kaalay adiga ma ogeedne maxaan ogaa aabba inuu wiilkaas isiinaayo aniga sideen ogaan karaa ii sheeg maya aha haddii aad ogaan lahayd laga yaaba
mar hore inaad ii sheegi lahayd waaye waa maxay dhibka jira ii sheeg aniga ninka aqoon xataa uma lihi ninaan aqoon u lahayn hey maxaa rabtaa editing inaad ku samaysaa sida film oo kale iga tag adigana ha adiga waxaa rabtaa qofkan ilaa iyo 2 sano 3 sano 4 sano inaad la sheekaysato waxaan ku weydiinaa kaale adiga xornimadaas ma rabtaa waxaan ku weydiinaa aniga aabahaaga ilaa iyo goormay aad garab nooga baahanay fiiri varun waa qof aad u nasiib badan maxaa yeelay adiga ayuu ku helay oo weliba aad u indha qurxoon waxaa kasii qurxoon markaad qoslayso bushimahaaga quruxdooda run ahaanta aabahaaga ninkaas si fiican ayuu ugu hiiliyey niil iddaa yaqay نيفو فاي مرق واتمت مجدده ها ملوك يا أخي أنت يجوك سويتي واك ما يقص عن كرادنا ميلا كارد ماله ميل والبوان قال هذين أنت جوك هذين كوس سعد مقطع هذين أنا نيف سام بكون قدام ساعة لك بلا وك أحد أصلا يدي يا أخي أنا بشير في السنبوس حاول كناسي أنا بس كذا بشر أنا والله صعت هذيك كلي أنا كجعله هذيك إن كالي دقيقة سوق بريها أنا قتك بنت بكون عين खामोशी को खामोशी से जिंदगी को जिंदगी से बात करने दो واكو سلامة عيارتان دادكان عيارين ميل عياريسا أنا بليز ما أنت مرسي ما جرتو الراع هنا जिंदगी से बात करने दो चुप तुम रहो चुप हम रहे चुप तुम रहो आंखों में खो जाए आंखें बोले हाथ से हाथ आंखों में खो जाए आंखें बोले हाथ से हाथ बाहों में छुपकर सांसों से जैसे डोले रात उंगलियों से मौसमों को शौकियों से बात करने दो चुप तुम रहो चुप हम रहे तुम रहो तुम रहो براتشي كال مركز كنت جابي هاي هويا برانشي waxaan ahay hooyada oo qolka kuugu soo gasho waxaan dareemaa inaad wax iga qarinaysid ii sheeg maxaad iga qarinaysaa maya hooy waxba maxaa ku jira qaanada yaa wax ma ku jirane gabadhayda waxbaa ka cabsanin ma kaa fiirinayo maanta weliba waxaad iigu diidda hooyanimo waxaan sugayaa maalinkai aad ii aragto inaan nahay saaxiibaddaa ood adiga gacantaada iigu furto markaad i tusto maalinkaas ayaan arki doonaa teeda kale waan ogaa gabadhayda inaad wax ceeba ii keenaynin oodan aniga iga xishood siinaynin adigana